صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 سنذيو فرض كأوغا فقرا سكذا سيا سنذيو فرض كأوغا فقرا سكذا سيا سقذ رحل الكيتوسا ربي أسجود بريا ربي أسجود ركوعا سقذ رحل الكيتوسا ربي أسجود بريا ربي أركوع سجودا رمضان 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 كريم رمضان 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 كريم لك باب التوبة مفتوح والقرآن دواء الروح وعبير بالخير يفوح في شهر الرحمة رمضان لك باب التوبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو عنا ونكسن من وحن لنا أصحابتنا رمضان مبارك رمضان كريم. waxaan bilaabanaa cashirkeena qaybtii labaad qaybtii koowaad hordhacaysa darada ay ahaayeen sheekheena alxamdulillah sheekheena adoonkii allah maasha allah qaybtii labaad ayaa noo bilaabanaysa cashirkeena soo dhawow. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله ولا الأولا إله سبحانه وتعالى ما هذا سقناتي مرك لبعضنا وحا محسن ولكن دقو أد دوم محسن تسودوين هذا مركز دحين إن شاء الله تعالى دمان دعوضياش آت وقيمها بدن يعني كحرا يعني مر البوناج يعني حيسايو وديار وعني وناج قيب قاتان مر والبي حلي والبو قارهان موسم كان لوجر موسم رمضان وحلي رمضان تأه وش حلي أد وناكسن يعني هورينا سأوصل شيء تهاي يعني إله سبحانه وتعالى اسكو جوني لي أنا اللي يعني أنا اسكال داسونك أنا كأول مرة بالله سبحانه وتعالى باب جوني أو جنة الأولى الباب جوني مرك إن شاء الله تعالى ما أنت نوام حيو حق سوق هذا يعني رمضان كمركو صاصو بالله وانا نهذا يدعي الس إعلامين أو إعلامنا أو النادينا يا باقي الخير أقبل ورمتك قارك يعني ضل يو أقبل سوق قابل ومعناها وناجي قارك لا سوق قابل ويا باقي الشر كان شرط ضلبايو أقصر كجوك أو قابصو يعني بشان بالشر معن الله نبدباري دمان تيادا دمان يعني دتك ودن يمهل بجوغان أنا اسم بدبارين كرنا اسمنا إلالين كرنا هدوسا إلهنا إلالين وإلهنا بدبارين تاس وحقيقة شيء مهم أو إن لو قادم مضان صادرت ولا ليال يعني بشان رمضان قرآن كلا أغريو يبلها كلا صح يعني هروسو شيغني بشان آدو قيمة بدن أجر كيدو وكبديا بلها كلا iyadoo mar walba quraanka uu ajir ku sugay nabi sallallahu alayhi wasallam man qara harf min kitabillah falahu hasana qofkii kitaabka ilaahay kamid ah xaraf ka aqriyo wuxuu leeyahay hasano wal hasanatu bi 10 amthaliha halka hasanana 10 laabkeeda loo laba laabay ay ahayd bilaha kala laakiin bisha ila 700 adaf amal soo noqonaysa saadartay sadaqooyinka bilaha bishan la bixiyo ee bilaha kala bishan ay hadana si qeyr badan nabiga uu ku dadaalay wuxuuna kaga dadaal badnaa min riix al mursala dabeesha teeda la soo diray صادرت هذا مركب مر والبقفك بني آدم وإن ومامحي خيرك وكود دالا عاو يعني حكم أو تمثيل أو مثالنا أيان شيء دونا إن شاء الله تعالى حكمة ذا سوا محي قضي أياوح ودالي سدح ويل سدح دي سعنق ويل متك ودعير هذا أب هداد جيريوتيد أنا جا إردا سانك بحيا اسمنا قانون ما أنت ساسو ديمتيد يعني وكاوريجي وكاتوليه وكالورين كان لبعض حولي أب مركا ديمتيد
waan ooynaya, waan ku ooynaya, waan bororanaya, waan murugaya. Yani murugo waa taqaana qof hadduu kaa geeriyoodo, yani geeridii murugta waa kula qaybsanaya. laakiin qabriga marka saa lagu dhigo waan kaasoo tagayaa, yani awood uma lihi inaan kula gala qabriga gudihiisa. ka saddexaad wuxuu dhaha haddaad dhimatid waan ooynayaa, waan kuu kurboonayaa, qabrigan waa kula galaya yidhahday. marka xikmadaas mithaalka laga leeyahay waa maxay? kan koowaad waa maalka qof markuu saasuu dhinto kulli way ka wareegaan, yani ijbaaran qofkii dhaxlaya ay ugu wareegaan. xitaa hadduu dhaha qofkii tusaalaan aabihiyaa dhintay cunigiisa hadduu dhaha wax dhaxal kama rabi aabihi hadduu dhaha xitaa yani qasab ahaana ugu wareegay oo uu dhaxlaa asaga iskale. saasoo kaleeta ayadaha qur-aankana ilaahi subxaana watacaala wuu noogu xadeeyey oo ahlul faradka yani waxaa ka mid ah ahlu nis maal kala bar dad qaadanaya, ahlu rubac afar ka meel yani hal meel qaar qaadanaya, ahlu thuluth saddex meel hal meel kuu qaadanaya, thuluthaan saddex ka meel laba meel kuu qaadanaya, sudus yani irtiga waa cilmi aada u ballaaran ilaahi subxana watacaala ugu xadeeyey. ahlu casabo kuu laajiro, yani almuhim waa fanni dhan oo ku tacalluqo. marka almuhim maalka qofka markuu saa u geeriyoodo halkaasay ku kala dhammaanayaan. waa wax maanta waqtiga lagu dhumiyo, ihtimaam badan la geliyo, la qiimeeyo, qofka walbana lagu qiimeeyo waa maalkaasi. maalinta qiyaamana su-aashiisa waa laba ayay noqonaysaa. cimriga qofka halka kusoo bixiso waa hal meel, yacni jismigaas halka ku baabiiso waa hal su-aal. yacni cilmiga maxaa kaga soo camal fashay? cimri waa cimrigii maalintuu dhashay ilaa uu ka dhimanaya 100 sano cimrigiisa halku kusoo bixi. cilmigana cilmi dhagoodku waxaad baratay cilmiga aqoonta u lahayd maxaa kaga soo camal fashay? jismigii jirkana maalintaa yara jirkaaga xaalkuu ku sugnaa iyo marka aad duqowday ama aad geeriyoonaysa xaalkuu ku sugnaa halkeed ku baabiis? meelu ilaahay raalli ka yahaya ama meelus ilaahay raalli keen? meesha ugu dambeysa waa maalka. way ka adag tahay tii hore hal su-aal laakiin maalka waa laba. min ayna iktasab wafima anfaq, halkuu kasoo galay maalkan, halkuuna ku bixiyey. su-aashiis way adag tahay. maalkaas saas u su-aal adag oo xaaladaas ku sugan qofka maalinta uu geeriyoodo ugu dambeysa halkaasu kala baxaan. gaarigan asaale qabriga lala geliyey, moobeelkan qaaliga ee asaa iskale qabriga lala geliyey ma jirto. yacni shay walbo aa ugu jecesha halkaasa ku kala haraysaan. maalintaa dhimatid halkaasu kaaga wareegay. kan labaadna waa maxay? waa qof walbo oo maanta loo feero qaraaca tolkayga iyo waalidkayga iyo qof walba u yiraahdo ama eheladeeda qaraabadeeda faamiliga dadku ugu jecel waa qofka dhihi doono qabriga dhinacaas ayuu xoogo ka dayacan yahay, ciidda ha looga aadiyo, ciid dhinacaas ha looga shubo. kulli halkaas ciid laga shubaya oo qaybay dhan qabriga si lasugu dheelitiro meel walba uu ka dayacan yahay ama xoogaho ka jirta baahidaas si loo dhamaystiro. kan ugu yacni kuu jecel waa midka halkaas haladada dhahay. saa darteeda waa maxay? yacni qof kula galaayo ma jirto. xitaa bir yara ugu yar badeelka lagu qodo xitaa hadduu meeshu kaga dhaca soo bixiyaa lee, mobil hadduu kaga dhaca soo bixiyaa lee. yacni wax walbo meeshaas ku hareen labadaasi shay waa labada waqtiga la geliyo oo la ihtimaamiya. halka aanan waqti badan in la siinin suuragal ay tahay waa camalka. waa midka la ooyey, qabriga la tagay, gudihiisana la galay, waa camalkaasi. yacni hadduu wanaag iyo kheyr kuu ahaa falilahi alxamdu wakafaa, waa sida la doonaya, fal amru waadix waa. laakiin shar hadduu kuu yahayna qofkaas isagaa dhibaysaa. sidaa darteeda ujeedada aan ka lehnaa usoo qaadana waxay tahay waxa qabriga nala gelaayo acmaasha ka mid ah. yacni ramadaanta la joogo waa ka mid. qofka tusaale ahaan dadaa laga yaabaa inay suuragal noqoto inay ka tagaan fududeys ay fududeysanaan darteed wuxuu ku leeyahay saqiir maadile. qaarkood waxaa laga inay ku dhahan yacni si jees waxuusan ilaahay raalli ka ahayn waay. yacni qaarkoodna yacni inay dhibsaan laga yaaba bishan markii la gaaro dhib u arkaan, dhibsasho u arkaan. qaarna way ku farxaan waxay dhahan wallaahi gaaska nahaayey aan nooga daawow, waa ku daawownaa. gaaska nahaayey xitaa markaa ramadaanta la gaaro aan soonno gaaska xitaa waa ka daawownaa oo yacni waa ka fiicnaanaa alxamdulilah, ilaah naga daaweeyo. yacni qof walba ictiqaadkiisa weel walba wuxuu ku jiraa soo shiifaa laha. qofka ictiqaadku aaminsan yahay maxaba iyo kalgacal uu kusoo dhaweeyay ramadaanta. saa darteeda gaaskii dhan oo dadka dhibayay ilaahay wuxuu ugu bedelay daawo si farxad leh uu ku qaabilay, uu ku gutay. mararka qaar wuxuu leeyahay suxuurta xal waa iga tagtayo markaad suxuurto aa kaga farxad badanaa markii yacni aanan suxuurin. waayo qofkan kas uguma tegino, suxuurta waa sunnada rasuulka sallallahu alaihi wasallam lagama tegi kara. laakiin xaaladaas waxay ku tusinaya qofkii baahidiiyo sii ziyaadsana lagu tusaa macnaha asagoo suxuurnin gaajada kusii ziyaadee. gaajo iyo gaaskan iskuma rono, qofka gaaska kusii dilaaca mogtahay. laakiin bisha ramadaan ilaahi subxaana watacaala barakaadka iyo nicmooyinka geliya waxaa ka mid ah qofkaas isagaa ku dhahayaba xali suxuurtu iga tagtay, haddana waa ka nashaad badanaha, ka farxad badanahay. waa maxay? yacni markii aan suxuurtaa kasii caafimaad badanahayo oo hadda aanan suxuurina ka caafimaad badanahayo kuleeyahay. yacni gaajadii sii ziyaaday, gaaskan waxba ka tareen. yacni ictiqaadkiisa iyo maxabadu kusoo dhaweeyey ayay ku tusinaysaa. marka saa darteeda kuwa kale oo cudurada uga tagay bisha ramadaan, cudur ahaaye ama gaaskaas oo kale ama marad ama xanuun ama jira hayso, jiradaas darteeda uga tagay inuu salli qaato oo gogoshiisa musallaha uu dhulka dhigto, labadiisa rakaaco uu ku tukado, si gooni ilaahay ugu baryo yiraahdo ilaahu xanuunadaas ayaan la tabaaleysanahay,
la daala dhacaya ilaahu adiga unbaa haya daawadii de ilaahay rabbi raxmano iga qaad xanuunkaasoo iga daawey inuu yidhahdo qofka. waayo sharoobada, kaniiniga, cirbada dhammaan iyo daawadoo dhan inay wax daaweeyaan amarka ilaahay, idinka ilaahay u baahan yihiin. laakiin ilaah inuu wax daaweeyo hadduu doono yacni daawooyinkaas dhan uma baahna. sharoobada, kaniiniga, cirbada iyo dhammaan daawada noocyadeeda kala duwan ama daawo dhireed ha noqoto, ilaah uma baahna. biduuni asbaab ayuu ilaahay bixin karaa daawada, uu caafimaad siin karaa. xilliga asxaabada ma jirin cisbitaalada jiro, firmashooyinka jiro, yacni goobaha caafimaadka jiro, yacni xaqabtir daat ahaan oo kor ka muuqda oo bulshada waa la xaqabtiray, baahida caafimaad waa la xaqabtiray kuleeyihiin oo cisbitaalle iyo farmashiistayaal waxyaaba usoo baxaa lagu leeyahay. laakiin haddana saasay tahay xilliga saxaabada nebiga sal lla ly slam xanuuno aan jirinaba jiro maahan oo halisteeda leh, yacni dhiigkarka, sokorka ama HVI idiska oo kaleeto, yacni cuduro kale kasii halis badan coronaviruska la sheegay. cuduradaasoo dhan dhammaan ma jiri jirin xilliga saxaabada. haddana yacni xilliga saxaabadana ma jiri jirin wax cisbitaalla zaaid saan oo kaleeto loogu dadaalo ama ihtimaam la siiyo ma jiri jirin. waayo qof walba ilaahay ayuu isku dhiibay, isagaas ayuuna aaminay. saa darteeda waa maxay yacni inaan ilaahay aaminno, kan xanuunada kan waa isagaana qaadi kara, inaan ku faraxna bisha ramadaan noo imaaday. waayo haddii laga murugoodo laga naxa an taxbad acmaalukum antum laa tashcuruun ayaa ka dhalanayso inay acmaashiina burto. wuxuu ilaahay waajib yeelaad ka xumaatood ka xanaaqday aad leedahay waa maxay yacni dhib badna ramadaan ma imaada hadda shid camal, macnaha qofkii kurbuu muujinaya, qof dhibaato ama kurbuu muujinaya kale u muuqda. marka saa darteeda qofkii acmaashiis inay burto ayaa suuragal. marka seesaan saas u dhicin ku farax waa ilaahi subxaana watacaala marti uu noogu talagalay sanadkii o dhanna lama joogta, hal mar imaadaa, jaanis badan looma helo. waa tii trib kale oo yacni lahay sheegnay, yacni waa maxay yacni soonka dadna la soomay ayaa suuragal ah soonkan inaysan jaanis ama fursad aysan u helino, ay u intiqaaleen nolosha runteeda iyo gurigooda runta aadeen qabriga ay dhinteen ee geeriyoodeen, aysan nala joogin maanta dunida. soonka dadna la sooma saasoo kale. marka almuhim adi maanta waa joogtaa, laakiin soonka soo socda inaad joogeys yaa kuu damaanad qaadi kara, ma hubtaa yaa ku hubwaamay. saa darteeda xilliga la joogo, xaaladda joogo inaad ka faa'iidaysano. yacni waa waxa adduunkan nala joogo camalkeena, qabrigana nala gelaya, aakhirana la tagaya, waa camalkeena, acmaashinaasana la weydiinaya. saa darteeda ayadaas muhiim jiddan. dhanka kale waxaa suuragal ah dadka qaar inay balwad ka cabanayaan oo balwadaas aysan ka maarmi karin, jirkooda la qabsatay. yacni saa darteeda marka wuxuu diyaar u yahay saacado kadib inuu dhufto. ramadaankiina min subaxi ka horo, salaad subax ka hor ala suxuurna, maqrib kadib, maqribka adinkiisana waa la afuraa. yacni intaas inta udhexeysa yacni qofkii dhibaato badan ama kurbo badan inuu la kulmaayo ayaa meesha ka muuqan karta. waa suu asaga iska dhaadhiciyey. shalay markaa caloosha hooy kasoo bixaysay balwad maadan lahayn, markaa soo barbaaraysayna balwad maadan lahayn. yacni hadda waad leedahay, dhibka yaallo cid kaloo kaa qaadi karta ma jirto, adigana iskama qaadi karta, cid kalena kaama qaadi karta, ilaah bisaa kaa qaadi kara. saasoo kale salligaada ama sijaayadaada meesha aad ku tukanaysa dirintaada dhigo, labada rakaca tuko, ilaahay ku hoos iyo baryo yaa arxamar raaximiin wa arxamar raaximiin. 3 mar qof markuu yirahdo yaa arxamar raaximiin, yaa arxamar raaximiin, yaa arxamar raaximiin, qof markuu 3 mar yiraahdo malagaa naadinaa dhahayo, yacni arxamar raaximiinka uu kusoo qaabiloye, yacni fasal waxaa doontid weydiiso waa laga aqbalayaa. marka arxamar raaximiin waa ilaah subxana wataala inta naxariista kan ugu naxariis badan waa ku calaan caloo dheh ilaahayow rabbi raxmaanow wadadan qaldan aan ku socda iga soo celi ee balwadda ah. yacni balwaddana adduunno way ku seejinaysaa, aakharno dembi unbaa kaa horeeya. ladatul macaasi tazuul, macaasida dhadhankeedii macaankii ay leedahay way zuulaysaa. wa ciqaabuhaa baaqin, ciqaabkeeda laakiin waa baaqi. yacni wa mashaqatu lcibaadati, cibaadada mashaqadeedana tazuul way zuulaysaa. waraaxatu waa baaqin, raaxada waa baaqi, ajirkeedii abaalmarinteeda. yacni mashaqay leedahay in salaad subax ka hor raashinku ugu dambeeyo kale ilaa maqribka ugu horeeya biyo waxaa cabtid, biyo iyo baad iyo yacni xitaa xaaskaada xalaasha aad ka tegaysid, waxyaabo badan oo nafsada aysan raalli ku ahna jiro. laakiin mashaqadaasi markaad ku sabartid yacni way zuulaysaa oo mashaqada kulamada oo taagnaanaysa weligeed ma soconayso, way dhammaanay. laakiin ajirkeeda, bishaaradeeda, faa'iidadeeda ilaah subxaana watacaala abaalmarinta uu kuu diyaariyey waa baaqi. maalina maanta in waad ku raaxaysan doontaa, waadna arki doontaa. qofka sooman laba mar u farxaa, cinda alfidr markuu afuro iyo cinda liqaa'i rabbigiis markuu la kulmayo aad ayuu u farxaa.